So you guys, maxaan sameynayaa hadda so barafaa jiro qabowba jiro yani baraf ma dhacooyo laakiin waa ice inta aniga labisanin asaga inaan u labisa waayo ko maxaan u gashaa Yusuf maanta qabowaa jiro uma ogi inaa arki kartaan laakiin fiiriya qoraxda jidaan I don't know ishiina ma qaban karto Okay, you guys, what is the area? And what you know, makeup I'm مرسد وقصبنا because أيانتا عادة قدامنا so مركي أنا عندنا أما نحن صاير هو استدلال قرط. وعد مي شقدي وعيد ما سو ولا هي إن شاء الله بيد بلاد كده حتى فلوج هذا كاشان ما دام ما أنا شقد بلا ما هاللي هاي أو هو شيء بدنت هاي وعيدي صدوا إن شاء الله بيد بلاد الكريم so let's go وحقادينا قد قادينا قد ما شاء الله لعقتنا ووضنا ما شاء الله so let's go. So walaalahay video la isoo diray oo aan dhageysanayay daraad qorax yar jirtay ilaa iga hayso waxa jirta walaalahay inaan sheego videoga wuxuu ka hadlayay wadaad insha Allah hoos inaan soo dhigaa hada awoodo wadaadka magaciisa ma garanayo laakiin sheekhu wuxuu ka hadlayay gabdhaha oo mataqaana isheegan wax bartay gabdhaha wuxuu dhahaayay gabdhaha wax baranayo ma guursanayaan waligooda ilaa marka rabtid inaad PhD qaadatid afartan jiraad ku qaadanaysaa asaga point badan uu soo sheegay oo uu ka hadlay gabdhaha marka wuxuu yiri gabadhii hadii ma taqaana ay guursato afartan jir de waa qof weyn soo moogidin okay ma xuma waxa jirta kale uu yiri dumarkii haday wax bartaan yani way isla weyn yihiin raaliya ma noqonayso raaliya ma noqonayso mana noqon karto because uu isla weyn tahay haweeneydaas ninna waxay rabtaa inay guursato nin oo ma taqaana de asna wax soo bartay faraylish mid miskiin oo masaajid ku jiro ma rabta inay guursato waa qasab so marka gabdhaha wuxuu kula talinayay wadaadkaas qeyr Allah siiyo gabdhaha wuxuu kula talinayay inay ayagoo yar guursadaan hadday ugu badato 20 jir iyadoo inay guursato ay wax iska dhalasho gabadha noocaas oo kale oo iyadoo yar guursato waa gabar wuxuu yiri tan wax soo barat raaliye ma noqonayso yiri laakiin tan wax baranin ma sha Allah waa mid raaliye noqonaysa okay aniga videogaas waxyaabo badan horta aan ka helin ay iga soo baxay ko waxa waaye gabadha hadday wax baranayso ma aha laana inay 40 sano wax ku baranayso ko labo iyadoo wax baranayso way guursan kartaa ilmana way dhali kartaa reerna way yeelan kartaa waxa taas cadeey adduunka dumarka adduunka jooga cadeeyay soo maydan fahmin ma sha Allah ani dhakhtarad waxa aqaana oo muslimada soo muslimta halkan joogto 9 ciyaar dhashay 9 haysataa ma sha Allah ilmaheeda hadda kulli jaamacada wada dhigtaan oo mataqaana qaarna dhaqaatiir noqdeen qaarna whatever mi fahanteen nin Pakistani qabo gabdho waa Jarmal waana dhakhtarad ما شاء الله أوفيس كذا أفر حفيز كذا أفرن ودكتورة يقول رئيس أنجرم كوبرت كو لو دكتورة ديدا أنا برايفت كي دكتورة ديدا وناك جرملا لكن أفر عيال هيستا أفر عيال أيه هيستا صدق قبل ذي يولبه هيستا وأنا دكتورة لأن just because دكتورة ذا هاي أما وحبان صوب برنا يا doesn't mean إن هذا المتقنة ولي علىها هذا إن أوح كورسين كرينين هذا وحنا لي كرينين you understand waxaan ka hadlayo marka aniga wadaadka waxaan ka xumaada waxay tahay inuu yiraahdo gabadhii wax baratay raaliye ma noqon karto ma noqon karto waayo waxa ka yeelayo de waa naag isla weyn saani u fahmay ma fahantan eragaas muu isticmaal laakiin waa naag isla weyn amala u fahmay waa naag isla weyn oo mataqaana isheegana ninkii dhageysanaynin mataqaana whatever waraa wax ay idin sheego qeyr Allah si wadaadka wax idin sheego aniga fiiri gabadha hadday wax barato especially gabadha Afrika joogtaan ka hadlaya timaaragtay nimanka
haddii lacalla nin ay guursato ninkii kala tagaan oolaad ay haysato ama ninkiiba tii alla u timaado geeriyoodo gabadhaas waa gabadha isdibirayso soo maydaan fahmin gabadhaas way shaqaysan kartaa oolaadeeda way korsan kartaa nolol fiican way ku noolaan kartaa gabadha aan wax baranin haddii sidaas oo kale ku dhacdo ama ninkii ka geeriyoodo ama ninkii ay kala tagaan gabdhihii Soomaaliyeed maxaa wada haysto ragga ayagoo geeriyooda qaarkood ka tagaan soo maydaan fahmin raggeena saa u wada taqaanaan waxa waa ilmaha gadaal looma soo fiirinayo hadday hooyadii kala tagaan so here is the problem marka gabadhaas marka maxay ku qasban tahay inay noqoto gabadhaas waxay ku qasban tahay inay oolaadeeda u shaqaysato sax oolaadeeda waa inay u shaqaysataa so waxay galaysaa nolol aad cariiri u ah okay nolol aad cariiri u galaysaa ilmihi u shaqaynaysaa maxaa la ii sheegay wax uma taqaanaa qiimo leh kuma shaqaynayso biilkii kaliya hadday ka soo saartay bursidaa sameeydan fahmin haddii lacalla laana ka soo qaad waxay samaynaysaa gabadhaas laga yaabaa inay mataqaan xataa ilmihi u soo bariyooto ee dadkii weydiiso reerkoodii tagto bariyo u tagto gabadha halkan joogto Yurub joogto iyo Mareykanka iyo macnaha qurbaha jooga waxay ku fiican yihiin ayaga at least waxay haystaan maxaa la dhahaa ishagna dawlad caawinayso oo lacag siinayso iyo ma fahmaysaa ceeray qaadanay lacag ay siinaysaa ma sha Allah dawladaas caawinayso ayaga soo maydaan fahmin laakiin gabadha Afrika joogto qof caawinay ma la run ahaantii marka iyada isku ku xiran tahay in nolosheeda ay mataqaana ilmaheeda ay badbaadiso hooyooyinkeena badanayna saas waa sameynaa wax anaga nagu cusub maaha soo maydaan fahmin so problem ka meeshaan ka iimaanaysa sheekhu wuxuu yiri adiga uma baahan inaad wax baratid uma baahan ma ku xisaabtamin lacalla bari hadii arimahan ku imaada gabadha yaa ka masuula ma isweydiinin marka aniga waxaan diidanahay ragga aniga waxaan la yaabanahay waxay tahay ragga why ay u diidan yihiin inay gabadha wax barato gabadha inay wax barato way loogu diiday sababta loogu diiday ila cilmiga rag iyo dumar way wada sameeyeen yihiin diiniyana maxaa u diiday gabadha inay wax barato ma fahmna intaas I don't understand that ko generation qarni aan ku jirno fiirinayna horta ko wadankeena hooyo ma joogno badana maxaa la ii sheegan haddaan joognana ma taqaana dee waa wadan aan dhisnayn oo wadan aan lahayn sharci iyo qaanuun waxba lahayn iska socoto maalin meeshaan la qarxinayo maalin meeshaan lagu baaba'ayo sameeydan fahmin marka aniga ma fahmin ragga waxay u diidayaan inay gabadhii wax barato oo ilmaheedii iyo reerkeedii ka soo baxdo of course ani haddana PhD wadata aan ahay of course waxaan raadsanaa nin PhD wata ama at least ila mataqaana ila barbar dhigan karo run ahaantii shimbirkiisa la duulaa haddaan ku qaldana walaalahay hoos igu soo qor ما فهمتي marka sheekhan wuxuu leeyahay de you know gabdhaha iska aamusan guriyooda ha joogaan saqir suujad 20 jir baday gaar gabadha hore looga guuriyo 18 baday gaar hore looga guuriyo haye waan guurinay ka bacdeen ninkii waa tagay ama waa dhintay haye adima bil ka bixinaa gabadha waa may that is the problem walaalahay annaga haysato annaga problemkan haysto waa tan marka aniga horta aadan uga qiyooday mid kale aan dhageysanayo waxay ahayd walaalahay wadaad kale daldalmaayay wadaad kale to baa wuxuu sheegayay asagana daldalmayaan dhina wadaad kale hadana mid kale aan dhageystaa waxay tahay walaalahay wadaad kale tan waan ka dhageysanayo asagana leh raggii ku leh mataqaanaan afar guursada waa inaad afar guursataan waa inaad awlaad badisaan waa inaad raggii marka Kenya joogan wad ogtaayno rag Afrika joogo ayaga masaakiin ilaahay u maqan yahay ma aragtay ayaa waxa lagu yiri sheegan afar u guursada bismillah wadadii aad u yiri yaa khayb bismillah so ragii afar u guursada markii la dhahay oo ragiina ma taqaan rag Afrika jooga ay yihiin oo ama waxa shaqeystaa miya ba shaqeysaninba marka sheekha dhahay afarta u guursada waxa waa sheekhan la yiraahdo raagi qof walba yaqaan sheekh Said raagi wuxuu yiri ragiyo afar u guursada ragiyo nabiga faray inaan tirada badino muslimiinta no problem ugu hayso waa good idea waa ma fahamtay meeshaan la istaagay akhi ninkan ya akhi ya Allah عليك جدك أحس أستاذ كورن anyway مركز شيخ وحي يرد أساسه يري سماه رجع جرسدو يري أوكي شيخ راجع أنا ماين رجع جرسدان أفرفرها جرسدان لكن وحواي preach أديك متقنا practice what you preach أديك أفرم جرستي
adi afar ma haysataa laba ma haysataa labo saddex ma haysataa waa may marka sababta anaga marka gabdhaha Soomaalida saani shaqo faham wuxuu qabaa gabadha uu qabaa gabar cadaana saa u fahmay so gabadhii cadaanka ahayd adiga lama guursanin afar ma ka daba keenin saddex kama daba keenin okay gabadhaadi waxa tiri laga yaabaa inaad mataqaan Yurubaan jooga mali ogola af Soomaali maaha rag badan oo Yurub jooga afar haysto ma faantay so that's not the reason ka jira waxa waaye adiga gabadhaadi marti inaad qalbiga ka jabisid oo naag kale ka daba keentid laakiin gabdhii Soomaalida waxa leedahay rag Soomaali waxa leedahay gabdhihiina Soomaalida qalbiga ka wada jabiyo saddex loo keeno waay adiga guursan lahayd saddex taas waa su'aasheeda adiga ina guurstid waa koo laba saddex so it's not fair inaad tiraadid mataqaanaa raggii ku tiraadid gabdhihiini wadnaha wada gooya oo mataqaanaa ii sheegeen عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى كل وإن سلامي يا شريت وقتين راح عندك حسنا قدع عادي إننا سوق قدي إنه عينك حسنا يعني هاي سو فيديو جي أنا كاميرا دي بتر الآن هيدوان أجاب كاميرا دي ده بتر جيده بتر لبعض أموت بتر لبعض بورصة كرتي هذا أنا مركان بحر بيان هذا أنا بورصة دي وحنا مدانا كوننا تنقاضه كبعدين وأنا كيلو بينا بتريق السكسوري تشو شالته لبعتها ساي هي ستي أو متقانا إيش اللي بتريقي عقد انتي however waxay sana maalin aad u fiican ma sha Allah we had a great time and waxaan tagnay all you can eat aan tagnay and so ma sha Allah waqti fiican waa soo qaadanay laakiin waa soo duubay sorry xanjaan cunoya waa xanjaan الروغويا because وحيرة معانا وباهناهاي and so that's that and وأنا كحمة هاي إن عين شالت إن شاء الله ندور كده عم بحدونا إن شاء الله وصوتوا بدونا so yeah and ما تبركوا حوس على برنامج أول نانو دمانويو ما أنت قدام بس إتحي مرك برنامج كسان صوت أماننا إن شاء الله بإذن الله الكريم and الحمد لله يعني قبلها شرط الدو حن كهلايي ان وذاتك او دحاي قبلها ما وبانين wax bartaan an كهلايي ان aadan uga qiiroonayay iyo shaqo kale tadhaayay maxaa la ishin ragga ha guursadaan intay guursan karaan wax badan ha guursadaan wax badan ha dhadhalaan yeah so shaqasna waan ka hadlaayay waxaan uga hadlaayay waxay tahay waxay ahayd in الشيخ سعيد ان aniga waxa kali aan ku raaxsanayna waxay tahay qofka waxa waay marka adiga dhahaysid saan sameey horta qofka inuu asiga ku sameeyo waay preach waxa la yiri and do as you preach so mogid sameey waxaad dadka u sheegaysid waana definitely waxa waay arintaas arin sax waay marka aan sheeqa xooga yar in waan ka carooday maadaama asigii uusan mataqaana ii sheeganayay uusan sameynaynin wixii dadkan uu dhahayo sameeya ma fahanteen marka aan waxa uu qaatay gabar cadaan uu qabaa sheeqa waan maqlay marka aan waxa uu qaatay gabadhii cadaanka ahayd adiga dad la guursanaynin gabdhaha Soomaaliyeed maxaa ragoodu u dhaysaa la guursada I don't get it why with you why sababta u dhaysbixta gabadhan la guursanayo oo Soomaali waayo ma fahanteen and so why adiga uga helaysaa gabdhii Soomaaliyeed wadnahooda la garaaco oo mataqaana hard broke lagu rido why ma fahmaysaa and mid kale tan okay nabiga wuu yiri عليه الصلاة والسلام أن قرصدا المبادن دلا يعني مدة حبتان well this day and age هذا سنة كان كجرنا مسلمين تلوا بليون أو تدي مروين almost يكونوا 2 billion people يكونوا هنا هانتي مفانتين and نلاش هو أدق تهاي مفانتين قبل هنا مرة هنا للقرص ويريهن كبرتين للقرصدو so and taasna ma aha xaraan hada adiga aad rabin aad jeclaan in lagu gurso this is nothing oo xaraan ah ma aha okay maxaa la sheegna Faadima ragcan hada ma jeclaan in lagu gursado waxay ahayd qof aad u maseer badan marka ragani waxa way dhibaatada taagna especially wadaadadii anaga aan fiirsanaynay oo anaga aan ka dambeynayno anaga aan rabnay inaan mataqaana ay sheegana sidoo kale noqono and yeah
marka waxyaabahaas oo kaleeto lagu hadlo xoogaa dumar ahaan annaga wayna dhibaysaa runtii dumar haddaan nahay gabdhaheenni haddii la leeyahay yani ha iska guursadaan oo wax ma u baahna inay bartaan you know nimankii la leeyahay afar u guursada 10 u guursada you know yaa la dagaalamaysaa you know yaa waa qofka la dagaalamaysid qofkan ibn aad inuu yahay sidoo kale naflay uu yahay ma u garanaysid ya qofkan inuu ibn aadan yahay uu naflay yahay uu jecel yahay waxa jecesha uu nacbanaan karo waxyaabaha nacabtay moogid hada necessary miya in xaajiga aan kala u raadiyo dhow guursan no it's not necessary qasab ma aha wax necessary ma aha anaga dadkina kuma yara ma fahanteen so ma dhahayo gabadhii rabtay inay ninkeeda naakal u guuriso okay good do it masha Allah for you yeah laakiin gabadhii tiraada aniga ma rabo in la guursadana yani ina isla fahno waay soo ma fahmin this is marka gabadhii Soomaalida yani ma fiican meel kasta laga soo rarbaaxo run ahaantii ma fahamtay meel kasta in laga rarbaaxo ma fiicna run ahaantii ani aad uga xumaad run ahaantii labada waan ka xumaaday waxaan uga xumaadaa waxay tahay sheeqan asaga gabar cadaan oo qaba gabadhiisa cadaanka de uma jeclana wadnaheeda burburo inay hard bro ku dhacdo ma jeclo ma rabo inuu la guursado gabadhiisa cadaanka iska haysta ma sha Allah laakiin adigii waxa ninkaaga la leeyahay ordood afar kala soo guurso sheekh please adiko samee and then dadka markaas ku dhig guursada aniga ma iga dhaacayso Yurub iyo Mareykanka hadii la joogo ma la guursi kartay taas waxa iga dhaacayso ma waxay iga dhaaceen kumaan kuna jiro oo saddex laba u qabay afar and so if you really want it hadday ka tahay dhab oo arabtid waa sameyn kartaa ya marka waxa waaye raggii oo masaakiinta ahay oo Afrika joogan ma taqaanaad wuxuu yiri naagta hadday dhasho maxay dhali kartaa 10 ka badan may dhali kartaa marka adiga waxa u baahan tahay 20 30 40 50 cunugaad u baahan tahay you serious sheekh seriously ma u baahan tahay 50 ciyaal inaad dhashid adigoo Afrika joogo oo xoolo haysan waraacado Yurub joogaan aad awoodin 50 ciyaala maadala adigoo Afrika joogo mi faantay oo nolosha iska adag tahay marka sheekh ma garanayo aniga hadartaan walaalahay this topic in oo mataqaana appropriate iyo laakiin markii gabdhaha laga hadlayo aniga gabar baan ahay marka waxaan jeclahay inaan ka hadlo gabdhaha macnaa waxa quseeyo waan ka hadli karaa ma fiicna gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta in laga soo rarbaaxo wallahi it's not good waxa sameeynaa waxa la sameeynaa ma ila fiicna gabar Soomaaliyeed meel kasta ka rarbaaxan tahay why loogu diiday gabar Soomaaliyeed inay wax barato why loogu qasbay gabar Soomaaliyeed inay ku ogolaatay habbi ku ahaato in dumar kale la guursado sabab adduunka ma sameeyaan waa anagna loogu qasbaya haddii aniga aan diidan waxa lagu leeyahay iimaankaaga wax ah mataqaana iimaankaaga ma fiicna raaliya ma tihid kadhiish qofkii bini'aadamkana ma taqaana waa inuu horta garan kara qofkan kale wuxuu dareemi karo markii la guursado anagana looma banan in ninkeena nin la guursano looma bananin okay that's okay looma banan laakiin haddii la loo banan lahaa adiga ma jeclaan lahayd in afar nin oo kale guursado waa ninkeygan ka hadlaya sama nin oo dhan aan ka hadlaya ma jeclaan lahayd naagtaa 3 nin oo kale inay kula guursato waa may definitely inay xataa fiiriin kale ma jeceshid samaha marka adigan intaas u hay in qofkan mataqaana ibn aadan uu yahay waxaan unsan karo maseerku waa jira ilaahay wuu noo ogolaaday laakiin isnaada necessary must ma aha meeshaan ma fahanteen waxa lagu dhahayaa hadaad sameeynin naad ku galaysaa ma aha marka yani wallahi walaalahay yani waxa waaye waxyaabahan baabuurka markaan saaranahay waxa waaye waxyaabahan oo kale aan jeclaan inaan ka soo hadlo because I don't have to inad kaamirada fiiriyo oo mataqaana ii sheegane hadalkii aan qorqor uma baahnay wixii qalbigay ka soo baxaya aan ka hadla gaariga markaan saaranahay ma fahanteen saa marka aan gaari u wada qalbigay wax ka soo baxay aan ka hadlaya wax ma soo diyaariyo saasaan ku jeclaa run ahaantii marka walaahi gabdhaha Soomaaliyeed horta ilaahay horta noo fududeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noo fududeeyo mataqaana hooshana way adag tahay okay hooshana way adag tahay wadaadadeenina meeshana taageeri lahaayeen push nagu sameyn lahaayeen in dhina orday wax barta orday mataqaana adduunka wax ka qabsada gabar kasto mataqaana single mother in laga dhigo iyadoo mataqaana 20 gaarin ya 4-5 laga dhalo single mother laga dhigo iyadoo 30 gaarin
oo mataqaana meelahaas balanbalayso caano iyo mataqaana u gadaysa yaanya ilmaheedii ilmihii usoo toogsanayso oo ilmihii usoo toogsanayso yaa haddana waxaa lagu sii leeyahay mataqaana haddana la sii gurso yaa madaxa ka sii garaaco 3 kale ka dabageey yaa why adig ma samaysid maxaa ku diiday yaa why you don't do that yourself waa la gursan laad adiga su'aal da'weyn soo gudin idinka marka insha Allah biidn Allah al-kareem we have to discuss this kan waa inaan ka hadalnaa waa inaan mataqaana ka morannaa waa in aan mataqaana gabdhaheena amaan la siiyaa okay amaan siiya gabdhaheena insha Allah biidn Allah al-kareem gabdhaheena idinka u ogolaada inay horumaraan gabdhaheena u ogolaada iyo idinka inaad mataqaana ay sheegana horumarisaan hadaa ragga tihiin واو ايش معك فيديو